asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada cashar kale oo ah barashada afka ingiriisiga. kanina waxa weeyaan cashar wada sheekaysi. casharkan wada sheekaysiga ayaa waxa uu dhex marayaa laba qof. labadan qof sida ka cad casharka waxa weeye laba qof oo ardaya oo aanan isaqoonin. dabcan qof walba qofka kale ayuu waxa uu weydiin doonaa su'aalo si ay labada qof ay isku bartaan. haddaba aynu bilowno wada sheekaysigii ama conversation waa kelmad ingiriisiya oo ah wada sheekaysi. wada sheekaysigan balaynu bilowno. hi qofkii koowaad ayaa salaamay. waxa uu yidhi are you my partner? ma waxaa tahay jaalkay? iga dabadheh hal mar. are you my partner? ma waxaa tahay jaalkay oo waxaa tahay qofka aynu wada shaqaynayno. kelmadda bartner waxaa laga yaabaa inaad ku aragtaan meelo badan. hase ahaatee waxay noqotaa laba qof oo wada shaqeeya oo hawl wada qabta. way noqotaa sida dadka shaqaalaha ah. waxay noqotaa dad ardaya oo hawl loo wada diray. sidaasoo kalena waxay noqotaa dad aanan markaa dad wada nool waa la yidhaahdaa oo jaal ah. waxaa la yidhaahdaa haddaba waxa uu yidhi are you my partner? are you my partner? haddaan ku odhan lahaa you are my partner waxaa tahay jaalkay waa wax anigu markaa aan hubo. laakiin waa marka aad rabtid inaad su'aal weydiisid ayaa waxaa la soo hormariyey rt. waxaa la yidhi are you my partner? ma waxaa tahay qofka ila shaqaynaya. mar walbo aad rabtid qof wax inuu aad ku ogaatidna intaa hore oo kale waad isticmaali kartaa oo odhan kartaa are you my neighbor? ma waxaa tahay deriskay. are you my supervisor? ma waxaa tahay supervisorkayga. are you the new manager? adigu ma waxaa tahay managerka ama maamulaha cusub. marka mar walba oo aad damacdid in aad qof su'aal weydiisid waad soo horumarin kartaa aarta marka aad weydiinaysid su'aal marka wakhtigeedu joogo. asagana waxa uu kugu jawaabi doonaa yes I am, hayo waanahay, ama no I am not, ama maye ma ahi. aynu wada sheekaysigan horay u sii wadno. qofkii kale ayaa waxa uu yidhi yes ha I am waanahay. yes ha I am waanahay. yes I am hayo waanahay. what is your name? muxuu yahay magacaaga ayuu yidhi. markii uu ka jawaabay ayuu waxa uu sii raaciyey su'aal oo uu weydiinayo qofkii yidhi ma waxaa tahay jaalkay. waxa uu ku yidhi what is your name? muxuu yahay magacaaga? magacaagu muxuu yahay? waxa uu ku jawaabay my name magacaygu is bako. waxaa la yidhaahdaa bako. iga dabadheh hal mar. my name magacaygu waa is bako. my name is bako. ha waxa weeyaan magacaygu waa bako. waxa uu ugu jawaabay waxa uu sii weydiiyey asagana su'aalo. waxa uu yidhi what is yours? adiguna kaaga muxuu yahay? what is yours? adiguna kaaga muxuu yahay? wuxuu ku jawaabay ninkan dan. magacayga waxaa la yidhaahdaa dan. waxa uu yidhi dan bark. waxa uu raaciyey magaciisii dambe ee qoyska. waxa uu yidhi magacayga waxaa la yidhaahdaa dan bark. dan bark ayaa magacayga la yidhaahdaa. kiisa koowaad iyo kiisii dambeba waa uu sheegay. hase ahaatee wuu sii watay oo dan ayaa waxa uu ku yidhi what is your last name? waa maxay magacaaga qoyskee dambe muxuu yahay bako? what is your last name? muxuu yahay magacaaga dambe bako? bako magacaaga dambe muxuu yahay? waxa uu yidhi waxaa la yidhaahdaa magacayga dambe montero. waxa uu ku jawaabay ninkii la oran jiray bako magacayga dambe waa montero. dan ayaa waxa uu ku soo noqday hadalkii. waxa uu yidhi how do you spell montero? sidee loo hingaadiyaa ereyga? sidee loo hingaariyaa magaca montero? how do you spell? see loo hingaadiyaa? qof wuu ku odhan karaa how do you spell your name? see u hingaadisaa magacaaga? ama can you spell your name? ama ma hingaadin kartaa magacaaga? markaana waxaa lagaa filayaa inaad kelmadda ingiriiska xabad ugu sheegtid. bako ayaa waxauu ku soo noqday hadalka. waxa uu yidhi magacaygu waa montero. bako ayaa haddaba waxa uu hingaadinayaa magaciisa. waxa uu yidhi montero. waxa uu hingaadiyey magaciisa. where are you from? where are you from? adiga
xageed ka timid Dan waxa uu weydiiyey waxa uu yiri where are you from Dan Dan adigu xageed ka timi where are you from Dan Danow adiga xagee ka timi Dan waxa uu yiri waxaan ka imid where are you from Dan markuu yiri Dan xageed ka timid Dan waxa uu ku jawaabay Seoul Korea waxaan ka imid ayuu yiri Seoul Korea magaalada Seoul la yiraahdo ee wadanka Korea ayaan ka imid marka uu yiri waxaan ka imid magaalada Seoul ee Korea waxa uu yiri where are you from adigana Where are you from? Adigu xageed ka timid. Where are you from? Adiga xagee ka timid. Ninkii kale ayaa waxa uu ku jawaabay ahaa Montero ayaa waxa uu ku jawaabay Colombia. Waxa uu ku jawaabay Colombia. Waxaan ka imid Colombia. Where is Korea? Dan. Where is Korea? Marka uu ka jawaabay uu yiri Colombia ayaan ka imid ayuu waxa weydiiyey oo yiri where is Korea? Dan. Xagee weeye Korea xagee ku taala? Where is Korea? Dan xagay ku taala Korea waxa uu markaa ku jawaabay it is in northern Asia waa waqooyiga Aasiya it is in northern Asia waa waqooyiga Aasiya where is Colombia Colombia waa xagee where is Colombia Colombia waa xagee it is in South America waxa ay ku taala South America waxa ay ku taala South America it is in South America waxa ay ku taala South America what language do the Koreans speak what language luqad caynkeeya ayaa do the Koreans dadka Koreyiinta speak ay ku hadlaan ayuu weydiiyey waxa uu yiri we speak Korean waxaan ku hadalnaa luqadda ama afka Koreanka we speak Korean waxaan ku hadalnaa afka dadka Koreanka what language do the Colombians speak back what language af caynkeeya ayay do the Colombians speak af caynkeeya ayay dadka reer Colombia ayaguna ku hadlaan baakow waxa uu ku jawaabay marka we speak Spanish waxaan ku hadalnaa afka Spanishka okay wuxuu yiri waa hagaag okay great waa hagaag we are finished waanu dhamaynay wada sheekaysigii waxa uu yiri waanu dhamaynay casharkaas marka waxaan rabaa qof walba oo ka mid ah ardayda in uu erayada oo dhan uu ku qorto buugiisa kadibna uu isku dayo in uu sentenisyada oo akhriyo kadibna uu haddii Ilaahay idmo qof ardayda ah ayaad kula practice gareyn doontaa casharkan marka isku day inaad dhammaan casharka oo dhan aad xafidid iyo jawaabihiisa inta aanu ku kulmi doono casharkayaga kan inoo xiga waa aniga oo ah Axmed Cabdi waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi